qaar ka mid ah odayaasha waxgaradka iyo cuqaasha degmada Qorlugud oo ka tirsan gobolka Buuhoodle ayaa cabasho ballaaran u soo jeediyay maamulka degmada Qorlugud oo ugu horeeya gudoomiyaha degmadaasi Maxamed Cumar Jarkunaban oo ay ku eedeeyeen maamul xumo iyo in ceele laga cabo muddo dheer lahaayeen dadka deegaankaasi laga dumiyay lana awday waxaanay odayaashan iyo waxgaradkani madaxweynaha Soomaaliland iyo wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland ugu baaqeen in si degdeg ah tabashadooda wax looga qabto waxaana kamid ah hadaladoodii sida tan shirkan jaraadaan ku qabnay wuxuu daaran yahay inaanu ka cabanayno cabasho aanu u gudbinayno dawladda Jamhuuriyadda Soomaaliland oo uga gudbinayno degmada Qorlugud maamulka xukuma min maayar ilaa taliye saldhig in badanna iska aamusnayn 30 sanadood oo Soomaaliland ama 30 sanadood Soomaaliland jirtay maamul boqortooyo nagu noqday oo iska fadhiya oo aan la bedelayn oo sidoo doono ma ka yeela deegaankan ayaanu u gudbinaynaa message-kan gudbinaynaa uu yahay inaanu dawladda dhexe maanta cabashadeedii ay soo fatahday oo aan u gudbino waxaanu leenahay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland wasiirka arrimaha gudaha Maxamed Kaahin Axmed oo deegaankan u dhashay waxaanu leenahay cadaalad xumada waxa laga qabto dawladdu waxa ka qabato maamulka maanta jooga waxa uu bilaabay inuu ansixiyo ceelal cusub dadkii ceelashii ka horeeyay qotay ee binaystay ee ku tabcay iyadoo maanta biyo loo baahan yahay aan loo baahnayn in la baabiyo baa kuwoodii loo awood sheegtay isagoo waliba ciidankii qaranka loo adeegsaday aanu aragno inay dhinac ka yar raran tahay cadaalad xumo ay meesha taalo ceelashii qaarna laga tagay qaarna la burburiyay waxa laga cabanaya ee dadweynahani ka cabanaya toban dambi oo iska daba galay ninka meeshan maamula ku xigeenkiisa xog hayihiisa bilayska oo aan wax cadaalad ku shaqeynay waa maamulka Qorlugud waxaan noogu daran inamadii yaryar ayaanu dooranay dhalinyarada ahay curdinkaan islaan waxba idin qabanayaan iyagii buu iska hor keenay iyagii buu qaar ka dhigay laalush qaatayaal iyo musuqmaasuqlayaal iyo isoo barbartaagay waxaan halkan ku cadeynayaa Maxamed Cumar Jarkunaban ninka la yiraahdo 30 sano meesha haystay ma afweyna madaxweyne waxaanu haynaa warqada ku cad 10 dambi oo ninka ku cad dhibaatadii kal shaale ka dhacday inamu wuxuu dhiibay qoryo iyo buugaagtii dawladda sharciga ahaa istabay dhigteen buugii dawladda sharciga dawladda hoose ku gooyeen lacag ka bacdi markii buugii dhamaaday laga soo qaadayna inamadii barti bay galeen oo chief bay noqdeen dadweynaha degmada Qorlugud baanu nahay dhibanayaal baanu nahay ceelashayadii halkan badhna waxa lagu soo rogay qasiraad iyo laaluush la yiri waa milyan qofkan milyan bixini wuu xiran yahay badhna madaraq iyo dubbe iyo sabaradii dhagax inta loo soo qaatay baa binadii la dumiyo la aasay si xaq darro baa lagu aasay si xaq darro baa lagu dumiyay waa bino maamulkan oo ujeedadiisu tahay musuqmaasuq caburin iyo lacag doonis baa hawsha fuliyay ceel sibirsan oo bina la saaray oo la bineeyay oo la jajabiyay oo la burburiyay ka dhacay waa tii koowaad ee ka dhacday Qorlugud oo maamulku sameeyay cadaalad darrada waxaan uga cabanaynaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland wasiirka arrimaha gudaha hadii laga qaban waayo la shaqayntiisa waxa weey waa ka joogsanayna oo la shaqayn mayno muuse madaxweyne bogcadan waa bogcadan kuugu gureynaa waraaqaha madaxweyne arinta hoos u eeg gudoomiyaha Qorlugud ilaa udub buu joogay waxa weeye dhiig miirato asal uu noqday naga qabo ninka naga qabo kuwa kale la socdana naga qabo haday tahay taliye qaybeed haday tahay taliye ku xigeen waa isku wada raas naga qabo dulmiga naga qabta madaxweyne naga qabo magaalada Qorlugud sanadkii afraad iyo kii shanaad safeenkii laga saaray wali waa qabiyo oo reer waliba intiisiibu soo oodaysta ilaa waa safeena sharci ahayn dawladda inay wax ka qabato oo dhaxaltooyada ninka ku haysta wax ka qabato oo kabilayska ee dhaxaltooyada ku haysta wax ka qabato mid waliba 22 buu haysta waana maamul xumo haduu 22 ba haysta 22 ka cadaalad wax ku maamulayo ciidama ma wada hadasheen sidaasaanu ka cabanaynaa maamul xumada noocaasanu ka cabanaynaa madaxweyne iyo wasiir ma waxaanu qaadanaa maamul xumadii aad dawladda dhan kula dagaalanteen ee xoogga dalka Soomaaliya waxa ku yiri hadaan nahay degmada Qorlugud ma qaadanayno maamulka ganacsiga ah waxa weeyaan lagu ganacsanayo ee waxa weeyaan reerkiisa ugu shaqeeyo waa 3 nin oo ilmaadeera waxaanu ka codsananaa laamaha qusayso
inay naga bedelaan waxaanu halkan ka sheegaynaa saacaddaa laga bilaabo horta marka hore maamulka degmada Qorlugud lama xukumo lama shaqayna namana xukumo degmada Qorlugud waxay ka cabanayaana waa maamul xumada ka jirta degmada Qorlugud ee dhinaca ka raran waxaanu runtii taariikh dheer oo dhowr iyo 20 sano ama waqti ka fog laga joogo ceelashii loqoday waxgaradkii iyo gudidii odayaashii xilliga joogay ay xidheen ayaa gudoomiyaha degmada Qorlugud Maxamed Cumar Jarkunaban ayuu furay rag buu u qoday dhinac ka raran dani walba markaa ceelkiisii ka aasnaa ee hore looga aasay maslaxada la mooday buu la soo baxay laba qof oo isku waqti hore ceelasha lahaa iminkana markuu inuu Jarkunaban u bilaabay ceelashoodii la soo baxay in midna laga dubiyo midna lacag laga qado waa cadaalad darro waxaan u aragnaa in dadkii danyartaha cunaha lagu dhagayo Cabdirashiid Timir Home Cable TV Burco.